aad u mahadsantahay Cabdulcasiis waan idin salaamayaa TV-ga Somali Cable waxaa runtii marka hore intaan taas laga jawaabin le horta shirar badan laga galay arrinta ku saabsan madaxda dawladaha Itoobiya iyo Soomaaliya iyo Eritrea shirar badan laga galay shirar badan ay ka hadleen oo ina tageen ka wada qayb galeen inta aan cunaqabataynta laga qaarin Eritrea iyaga ayaa diyaariyay ay madaxdaasi in cunaqabatayntaasi la qaado ka shaqeeyay laakiin laba arrin u baahan inaan wax iska weydiino runtii ay aad muhiim ila tahay midda koowaad waxa weeyaan cunaqabataynta Eritrea la saaray markii hore maxaa loo saaray khalfiyada taariikhiga arrintaas ay leedahay sababtii loo saaray midda labaadna waxa weeyaan si guud hawsha socotay iyo cunaqabataynta laga qaaday Eritrea maxaa maslaxadaha Soomaali ugu jiri kara iyo dooda socotay iyo zakhamkan la abuuray ee gobolka oo dhanba midda koobaad haddii aan ka jawaabo waxaan isleeyahay aniga markii la saarayay Eritrea sababta loo saaray cunaqabataynta waxa asal ka ahayd oo Soomaaliya ay qayb ka ahayd cunaqabatayntaas la saaray carqaladii ay samaysay dawladda Eritrea oo ay iyadu sabood gareynaysay ururada ka soo horjeeday dawladnimada Soomaaliya oo shabaabka ka mid yihiin ay saameeyay la lahayd hubbay dalka ku soo daabuli jirtay Eritrea meel ay arrintaas uga hadashay oo igu cudur daaratay oo ay maartay inay ka tanaasuleyso cadeysay haba yaraatay ma ayna jirin madaxda Soomaaliyeed nalama wadaagin shacabka Soomaaliyeed nalama wadaagin sabab ama reason keeni kara marka anagu inaan hormuud ka noqono dadka ku nool wadanka Eritrea anaga ee shacabka wadankaas anagu cadow kuma nihin cunaqabatayn culays ku ahna in la saaro ama culays la saaro guud ahaan qaaradda Afrika ama dunida oo dhan meel aan raali uga nahay ma jirto laakiin maamulka iyo nidaamka ka jira Eritrea ma yahay mid u qalma inaan anagu ka shaqeyno cunaqabatayntiisa isagu diyaar ma u yahay dadka Soomaaliyeed dhibaatada u geystay inuu ka cudur daarto diyaar ma u yahay inuu gacan ku yeelanin mashaakil dambe oo wadankeena ka jira taas mid waaye midda labaad aad kana muhiimka oo aan rabo halkan inaan ka cadeeyo waxa waaye askariga jooga beledweyne reer Djibouti ee dhiiggeena iyo dadkeena noloshooda difaacaya ee hortaagan ee ka shaqeynaya inay cadawga laga xoreeyo dalkeena kii dhigiisa ahaa ee la dhashay ay Eritrea ilaa hadda xabsiyada ku haysataa ayadoon dawladda Djibouti laga qancin ayadoon raali ka noqonin ayadoon cunaqabataynta la qaaday ka hor waxay ahayd in dawladda Djibouti cunaqabataynta ay raali ka noqoto waxay ahayd in dhulka Djibouti la soo celiyo annaga dawladda Djibouti waxay noola mid tahay Soomaaliya cad yar oo dhulka Djibouti ay leedahay wuxuu la mid yahay cad yar oo ay Soomaaliya leedahay noola mid yahay wax isbedel oo ka dhaxeeya ma jiro waa dad walaalo ah kaliya laba system iyo laba dawlad iyo laba nidaam kala jooga marka Djibouti waxay ahayd ciidankeedii in la soo celiyo waxay ahayd dhulka Djibouti in laga baxo markaas kadib aan kala shaqeyn karnay Eritrea in cunaqabataynta laga qaado laakiin ayadoon intaas dhicin waxaan u arkaa khalad istiraatiiji oo dawladda Soomaaliyeed ay gashay Djibouti shalay bay garab taagneed dawladnimadeena soo laabashadeeda iyo inaan maanta doorkan soo gaarin xaq iyo waajib aan naga saaran ilaalinta Djiboutina waligeed Soomaaliya dawra ka saarneed maanta burburka iyo dhibaatada aan ku jirna kaliya ma aha laakiin Soomaaliya maxamuud xarbi waa la yaqaanaa qofku dadka Soomaaliyeed looma qof iyo laba lagu ma soo koobi karo taariikhda ka dhaxaysa Djibouti iyo Soomaaliya raali ahaanshahooda ayadoon la helin ayagoo aynan ayagu codsanin aynan ogolaanin inaan anagu ka shaqeyno hawshaas khalad istiraatiiji oo madaxdeena maanta Soomaaliya ay gelaysa waaye ma garanayo wax maslaxad ah oo dadkeena ugu jira anagoon xuduudkeena haysan inagoo aan dalkeena ka talin karin inagoo maalin walba xuduudaheena ay dawladaha dariska hoosay rabaan u maamulanayaan inaan anaga ka shaqeyno hawlo noocaas qarankeena maslaxadda iyo danta ugu jiri karta maanta waxa weeyaan waxaan isleeyahay waa khalad aan laga fiirsanaynin haddaan ka rabno madaxdii geeska Afrika shirtay zakhamkaas iyo orodkaas haday macna noo sameynayso waxaan u maleynayaa waa wax kale laakiin qarannimadeena waxay ku soo korinaysaa mala waxaan heshiisyo gali karnaa ama ganacsi isu furan ha noqoto ama nolol kale ha noqoto ee siyaasadeed ama xiriir wanaagsan oo dadmaas dariska aan la yeelano laga wada shaqeeyo wax walba waxa ka horeeya anaga xadkeena inaan kontroolan karno madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay ahayd inuu Soomaaliland la hadlo waxay ahayd inuu Soomaaliland mufaawadaadkoodii wada hadalkoodii soo nooleeyo inta Eritrea iyo Ethiopia wada hadalkoodii mufaawadaadkooda la xoojinayo la nooleynayo waxay ahayd ilaa maalintii la soo doortay madaxda qaranka ilaa maanta lagama hadlin arinta maxaa la yiraahdaa Soomaaliland lagama hadlin dadka Soomaaliyeed soo jiidisteeda iyo midayntooda in laga shaqeeyo ayaa ka horeysa inaad kuwa kale midayntooda ka shaqeyso marka East Africa iyo shaqada laga wadaahay waxaan u maleynayaa
waxaa ka horreyso priority badan ka lahaa midda dhexdeenna dowlad goboleedyada in lala heshiiya ka horreysay waxaa ka horreysay in maaragtay dowladda Somaliland lala hadlo systemka Somaliland ka jira lala hadlo wada hadal wanaagsan lala furo waxaa ka horreysay in la ilaaliyo shucuurka iyo dareenka dadka reer Djibouti aniga mar dhawaan Djibouti tagay hadda shalay baan wadankan ku soo laabtay laakiin de Djibouti mar dhow baan soo maray waxaan arkay dadka Soomaaliyeed dadka reer Djibouti aan idhaahdo shucuurkooda iyo dareenkooda iyo siday arrintaas uga hadlayaan iyo sida ay u arkaan in lagu dhabar jabinayo ayaan soo arkay marka runtii aad iyo aad arrin looga xun waayo laakiin waxaan rabnaa inaan si guud u sheegno shacabka iyo madaxda reer Djibouti intaba inaynan ahayn wax la isku raacsan yahay maantay in arrinta noocaas laga shaqeeyo dadka Soomaaliyeedna inay ka xun yihiin ayadoo aan reer Djibouti xuquuqda ay leeyihiin Eritrea aynan ogolaanin wada hadal iyo mufaawadaad lala galaa inay khal istiraatiijiya tahay aad u mahadsantiin